dhalinyarada Marooka u sii cararaysa ayaan laba u qaybiyay nin aamusan edebna ku baxay guurna raadinaya kadibna calafkiisa soo qaadaya markuu guursadana si sharaf badan u dhaqanaya kaasi ma haysano laakiin aad gabdhaha iyaga u soo dhacdo fala anagoo nool khaasta aniga Abu Talha anigoo nool waa hooyaday waa walaashay waa gabdhahayga kulli dumarkuna waa Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay sharaf iyo guul iyo gobonnimo gabdha idinka qurux badan oo idinka karti badan oo idinka diin badan oo idinka xijaab wanaagsan oo idinka sharaf badan oo idinka adkaysi badan wali dunida waa laga soo waayay inaanu guurka maanta qaaliga noqday ee dhalinyaradu ay ka qayliyaan inaan la dhayalsanin ee guurkii hoos loo fiiriyo bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الأحبة في الله أحبكم في الله وفرقيقا وحوداري هاي لبا قضب ككوباد وحال ليلة هذا خفيفي قضب كاللبادنا وحال ليلة هذا عنقبتين محانو قتشي ذا خفيفي رب العزة جل في علاه وحنوسو دتشي الدين فضد أو خفيفة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله وحو إذن لدون يا فضيد إذن لمدون يا عليس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذن كما كلف وحيدا أو ذكر بابك عبادتنا فاتقوا الله ما استطعتم استاقدات كتكا وإذا فردي كتكو فردي هدات كتكا وإذا نتشيف كتكو استطاعة أيا الله شرط هياه guurka ayaa ii soo haray nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu u duceeyay barakana uu ku miismiisay guur walba guurku ka khafiifsan yahay meher walba meherka uu ka yar yahay guur walba guurka uu ka taklifa yar yahay oo ka dhaqaala yar yahay ayuu nabigu u duceeyay sallallahu alayhi wasallam inaanu guurka maanta qaaliga noqday ee dhalinyaradu ay ka qayliyaan inaan la dhayalsanin ee guurkii hoos loo fiiriyo waxaan doonayno inaan dalkeena difaacano oo markii dalkaaga lagu soo duulo oo maskax ahaan lagu soo duulo ghazwatul fikri oo askari ahaan lagu soo duulo oo baddaadii lagu soo duulo barrigaaga lagu soo duulo barrigaaga iyo hawadaada lagu soo duulo waxa wax difaaca waa dhalinyaro hadday dhalinyaradii marka wadamo kale u cararaan ma caruur ay wadamo kale ku dhaleen iyo gabdho kale miyaa ku difaaci ma kuwa wadan gaala ku soo barbaaray oo adigaba loogu talagalay 50 sano in dib lagu soo celiyo ayagoo ideolojiyaad badan oo kala duwan wata oo wadanka ay diinta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka ay ka bedelaan ma kuwaas ku difaaci maya saadaradeed waa in mawduuca dib loo eego oo dib loo fiiriyo oo zawaajka iyo guurka la khafiifiyo بإذن الله سبحانه وتعالى هرتا قضبك كوباد خفيفي معنيه سوى مدك قضبك لبادو عنقبتين وحانولا تشيدا عنقبتين للي يرد مروكا أسي عرريسا أيان لبا قيبيي نين آمصن إذبنا كبحي قورنا رادينيه كدبنا علف كيس السوق هذا مركو قور سدنا سي شرف بدن أولا غنايا كاسي ما هيصنو kaasi nin la haysta ma aha amma dadka social media ka caytamaya ee gabdhihii muslimaadka ee Soomaaliyeed ee sharafta lahaa inaynan dumar noqon karin ka caytamaya gabdhahana hooyadii baa kamida tabcan oo walaalihii baa kamida tabcan oo habaryarihii baa kamida tabcan maxaan marka ku garanaynaa hadda sawirkiisa xifdi oo magaciisa oo saddexan xifdi oo YouTube-ka uu ka hadlay kalimaadkiisa xifdi gabar walba marka uu ninkii ku soo baxo marka way garanaysaa taasi waa cunaqabatayn iyo dan aan ka leeyahay inayna guruub mar dambe inta isbiirsadaan inayna gabdhaha Soomaalida aflagaadeynin wa ilaa qofka guursanaya uu guursan karaa ajnabi guurso laakiin si edeb la ku guurso hada wa billahi tawfiiq sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh